بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورتروبنا ويهيا إكره هذا ما شاء الله. waxaan barnaamijka barta waan calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. guud ahaantiin ba walaalayaal iga raali ahaada araariya baan ka horreysiinaya dadka. waxaan u sheegayaa runtii inaan anigu number qura uunaan isticmaalo oo aanan facebooka messengerka cidna kala xidhiidhin, cidna kala hadal, mid aanu saaxiib nahay iyo mid kala toona. caawa barnaamijkeenu wuxuu daaran yahay, horta waxaa la yidhi Soomaalidu waxay ku maamahdaa ninka waxa jooga aan garanin ama aan fahmin waxa soo socdana ma garto. way Saciid Fiigo aad baan ku salaaminaa Allah barik. waxa soo socdana ma dareemo. wuxuu yiri hadday dani tiraa meel sababtii la doonaba daraadeed ha noqotee, hadday dani tiraa meel daaraha ha laga raro, in la dumiye mooye dawo kale ma leedahay. dawo maya. walaaladii beesha hawiye wax fara badan baan u digay. farmaajo qofku yahayna qofkii ugu horreeyay ee sanad iyo bar ka hor sharaxay iyo tooshka uu sitaa anigu ahaa. laakiin Soomaalidu waxba waan la isu qarin oo de Ilaahay baa ummadan qof bade karaamo siiyay oo waan arkay ninka la yiraahdo farmaajo ee madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed u soo sheegtay horta waa ciil qabe number 1. waxa uu raadinayaana waa argoosi oo toosh buu sitaa. siyaad bariya riday SNM yahay isaaq ogaadeen wax kale kuma haysto. in Umar Chess iyo SBM Allahu musta'an hawiye USC iyo IDD iyo arrimo noocaas wixii oo dhamaanta banaanka hortiina siimaday. waayo inuu abaalaaway oo uu yahay qof liita. waayo Soomaalidu waxa dalaacuna wuxuu fiday markii geela loo diray ninkii maqasha dayacay. war ninkan horta uu talada ka qaata. in badan baa Soomaaliya dhageysan weydin hadaan hay cabsanaan jirna. in badan ayay dhageysan weydin, laakiin caawa wax fara badan baan rabaa inaan idin la wadaago. farmaajo horta maskaxiyan umalayn maayo iyo structure ahaanba inuu qof fiita u yahay. no umalayn maayo. waayo waxa furahana u haya oo maskaxdiisu gebigiisuba ay ku shaqaysaa oo talada ugu dambaysa siya waa Fahad Yaasin. waxa uu ka yimi feer buu ka yimi. maalin shaar Ethiopian ku soo xidhanaya, maalin shaar la yiraahdo Soomaalinimo oo isaga waxanba waan heero xasan. ilaahay baana dadka qabeel ka dhigay oo Allah Raxmaanka ama aayadan beenina. ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri inna ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu. farmaajo marixanimo u dagaalamaya iyo siyaad bariyadii reero xasanna ilaa sayidkii taariikh dheer bay lahaayeen, ilaa sayidkii nimankii Afrigay bay ahaayeen, ilaa waxay ahaayeen waa balaa ilaahay Soomaalidu ma loo soo dirayba markay isaaq laga reebo. waa isaaq reero xasan kama qoran maba garanayaan bad way la yaabayaan ilaa imkadaas ila yaabeen isaaq qoran. war aw xasanow sheekhaal boo haay wuxuu maxay ahaayeen. wari marka horta kelmadan ka dhawaajin waxaan idinku soo bilaabayaa qofkii koobaad ee uu argoosi uu farmaajo uu meesha uga tuuraa kumuha. anaa idin sheegay wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray Jawaari. muxuu farmaajo ku erinayay? wuxuu ku erinayay in adeerkii oo mareexaan ahaa oo la reer diini ahaa imkana la taliya u ah oo la yiraahdo Saacid ayuu ninkaas hor istaagay oo uu meesha ka tuuray. horta kiiba ku guuleystay markii koobaad ee aniga farmaajo isugu ka dambeysana waxay maalintii anigu dhashay yar waxba oran maayo. dhashan yar ee Cabdinuur la yiraahday ee masaasada shaqa ashaaga raaciya walaalayaal waxaan de la dhagiba ku ciyaar lahayn isaaq baan oo laandheera baan ma sha Allah oo de siyaad barayo Nigeria saway marxano soo waraysta horta anigu ma xitaa isaaq ay dina calaya maalintii u daran tahay ku diirsadaan ma sha Allah si shar garaya ya Soomaali Nabi Maxamed. waayo
doqonta baasha la dhahdo doqontu didibsiye ka joog bay kaga sii dartaa moogta imisa maxay energy kaga baxay wallahi muuse bixi madaxweynaha Soomaaliland allah ya baarinka reeshka saad in nasabka wallahi waxa energy iyo talada igaga baxday igama bixin doqontu waxay u taqaanaa dadka oo lagu kibro iyo marka jaanisar ay helaan doqontu inay fariidnimo tahayba wadabkaad ku leeyahay war dabkan ka joog dabbaad ku dhacaysaa ayuu kaga sii daraa qofka doqonka ay moogtay oo dee doqontu had iyo jeer nin liidku waa ninka raga wuxuu ka fekeraa war waxan maxaa dabayaal maxaa dhici doona waxa taageeraana waa buluush oo iyagu waxaad ceebta u taqaan rag bay camalkiisa in dadka dhib lagu sameeyo in mashaakil ummadda lagu sameeyo in dadka la kala diro in la kala dilo guulaabay u haystaanba wari oo anigi lahaa doqontu had iyo jeer markaad leedahay waxaan usoo qaadan jiray oon halhays aan ka dhigin jiray berigaan dees lahaa ruuxan malaa waxbuu yara maqlayaa oo dee waa qof caadi ah allah ha u naxariisto oo janna fardowsaha geeyey abwaankii weynaa ee cad isugu leecigaal dum carbeed oo ruuxa maxaa waxay geeyey khasaaroobay markaan lahaa dirac kali ahaantii daleel guusha kama helo dadka gees lagu yiri oo ma dadkay garanayaan badde waa buluusho waa wax aan sidii rag iyo rabbi toona ma yaqaanaan marka horta walaaleel qofka ayaan idin sheegayaa maalintan waxaa kala hadnay ee aan nidhi talow waliba adigoo isaaqa basaaq guley hadalkan hadda wuxuu ka soo maqlayaa inaan kan yaree masaasada jaqa hadalka wuxuu ka soo maqlay waa ilaan ciyaalku had iyo jeer waxa xaafadooda iminka ciyaalka yaryar maarta haddii hooyadood bariis ay kariso ama ay baasta isku dhex karisa ay kariso ama gurigooda waxa ka socdabay shirarka la yimaadaan oo rag waaweyn la yimaadaan iyo moogta maalintii jawaar la ridayay anigu hadalka kama sinaysanayo run baan sheegay qaranni baan islahaa waa la raadinayaa oo dee qabiilkan iyo qofkan la daba socdo ismaan lahayn marka xog badan oo saasana xaqiiqda wanaagsan maan hayn laakiin markaan ka niyad jabay banaanka ka maray waxay maalintu kan yari kelmadu ka soo dhex qaaday farmaajo iyo Fahad Yaasin uu igu yiri niyow maanta nin marreex oo markii dee subaxnimadii ay niman hawiya habar gidir ay meesha galeen oo nimanka inta badan iyagana la eedeynayay laakiin waxaan fahmay jinka markii baa arkay uu igu yiri maanta nin marreexaana baa madaxweynaha inna loo joojin maayo hadda waa kan yare maalin Itoobiyaanka noqonaya moogtay dee reero xasan maalinna Soomaaliga noqonaya masaan waxaan idhi niyadan waxaan iska niyo tolo qonay doqonsana oo nacsisana siyaad bahrayn Nigeria ku dhintay oo la yiraahdo macaasuulibu ku dhintay wixii koos gal meelo kaas oo marreexaan ahayn haddii marreexaannimo ay shaqaynayso marreexaannimo ay waxtahay marreexaan ba kii cunay meeran aniga ahayn waliba inuu dadka kale ku dhaadaabay anagoo reesha saxaaqa bay la soo doontay masaha war waxan waa falsafadii wata hadaba waxaan idin sheegay waxan iskama bilowdaan each and everything has a reason wax kasta sabab bay leeyahay waxan horta maanta hawiyo ku dhacaya mashqacan hore loogu day hadda ka hor waxaa la laayay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Shukur istaafkiisa xitaa kabaha lagu aasay step by step ninkana waaba ciil qababa dagaalo fara badan Soomaalida gudaheeda oo siyaasiyana oo uu leeyahay siyaad barre toosh busta siyaad barre haday uu ku soo qaado ninka koobaad ee laga aargoostay wuxuu ahaa ninka la yiraahdo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ee sharci yaqaanka ahaa ee la oran jiray Jawaari doofaarna abidkii ma taahiro daarooda weligii ma taageera walaw aan ogahay daaroodka caqliga badan haday yihiin ogaadeen koo kale nimanka dantooda yaqaana ee aan dabka ku guban ilaa waxa Soomaalidu maahmaaba waxay tahay ama suugaan bay waxay tahay dab waxa ku guban kara nin u daaramooyee niman xeel ku damin karin waayo dabka waxa ku gubtade niman xeel ku damin karin way xeelad iyo caqli loo baahan nimanka ma jartan danahooda iyo hawlahooda watan horta daarood waxay u soo jiidayaan wixii horeba ugu soo jiidi jireen maantana Soomaali iyagu un baa kala dilay horena way u kala dileen wadadii adeerkii arday macallin wuxuu dhigay kama dhaqan habaabina dhabadiisi ku aroor dhabadiisi buu haystaa la taliyaashan di sheegay hadaba la taliyaashiisa number 1 waa Saacid ninka ra'iisul wasaaraha mar soo noqday
oo mareexaannimada intay biyo dhigtay ku dhex dabaashay qabyaaladu qanjaha joogto ciil qaban number 1 ah oo waa ninkii dee lalahaa odayga meeshaha laga tuuro berigiibu dictatorkan waxaan la yidhaahdaa tala wadaag ma ogola ninka la yidhahda dictatorka weligiinba farmaajo waxbu war ninkani wuxuu dalka ka tegay siyaad barro dalka haysta dabeetana askarinimadii iyo dictatornimadii iyo macankegnimadii ayuu ilaa abtuna uu ka fikerayayo argosi isaaqa la dagaalan kow way xogo badan manacaa walaal idin siinaya waan ku nafisay anugu runtaa fiican walaaladii hawiye waan jecelahay laakiinse waxaan leeyahay allah ya baarik waqtigeedii bay timi isagoo oo sidiisii baar calaacal baa usii diyaarsan baar calaacal ilmo mareexaan baar calaacal baa usii diyaara way anagana mabay soo gaadhinba isaaqana waxaan leeyahay weligiinba noolaada laakiinse walaalayaal had markaan ka hadlayo waxaan dee aan ilan sunbaa soomaali ku dhex jirtee hayla yaabina oo hawsha un iska dhegaysta okay horta waxaa la taliya waa ibraahim madaxi mid la yidhaahdo ibraahim madaxi meel ku qorta saraakiisha somaliland way garanayaan ninka la yidhaahdo dhegaweyne wuu garanaya calanka somaliland baa dhacay raale ahaada calanka somaliland inuu dhaca maahe waayo kaasna waa kii faransiiska xaq bay igu leeyahay ka somalilandna waa kii somaliland lagu soo dagaalamay maaha ka puntland oo kale iyo kuwa kale la mid maaha waxaan idiin sheegaya ninka la yidhaahdo ibraahim madaxi dhegaweyne wuu garanaya maxamed kaahin axmed iyo muuse biixi cabdina way garanayaan ninka la yidhahdo xasan gurna wuu garanaya ninka la yidhaahdo isagana caawaan ku darayaa buubaana wuu garanaya horaan ugu soo gudbiyey waa la taliyihiisa khaaska ah qol bay wada deganaan jireen maraykanka dhowr iyo 10 sanood bay run meedahay haddaba waa kuma ibraahim madaxi ibraahim madaxi waa reer diini waa raggii berbera markii dagaalkii ugu dambeeyay xitaa islamtu uu ka dhacay mas'uul uga ahaa dawladii dictatorka ahayd ninkii aayadaha beeniyay ee adeerkooda ahaa ee maantana Soomaali halka ay taalo dhigay ee wadada tareenka dhigay ayuu berbera mas'uul uga ahaa ibraahim madaxi waxa uu ka dhoofay meesha la yiraahdo Ingiriiska markii ugu dambeysay kelmadihiina dhex maray waan garanayaa waan idin sheegaya waan la wadaagayaa horta isagaan sharaxaad idin ka siinayaa ibraahim madaxi waxa rasaas fara badan ku dhuftay oo dabcan oo dhaawac fara badan ka soo gaadhay niman habar gidira dabeetana ciil iyo cadho horta habar gidira uu qaba ibraahim madaxi raggii ugu horreeyay nusbarnay buu kamid ahaa aan wada hadalnay isaga iyo axmed farmaajo ninka la yiraahdo ee madaxweyne farmaajo walaalaha iyo ciil qabayaasha ninkaasu waa ninka ku yiri kan yar ee baranbaro beenaal maqlaatigiisu fogeeya baranbarahan yar ee maartay midaro dashishley wax sheegto oo boosaasi meelaha kiimi muuse bixi saacad kaga fadhiistay oo aanu garanaynba qabyaalada halku ka qabo ninka ku yiri war ni haw ma dashish lahayn ha oo dashish la siyaad baray muxuu ka xumeeyay boosaasi meelaha saabay joogaano waa tilaamiga loo sameeyo wax noocaas wariya anigana horta cabsan ahaan daanu waxaan ahay markay ka hadlayaan waxaan ilaa qabyaalada iyaga bilaabay sheegaanta bay gabadhi gaba sheegaanta waa bana hayba allah ya baarik musabixi maxamed kaani waxaan weligiin banoolaada waayo de waxa idu ka dagaalanteen uun baan ana arka waxaan ninka xitaa yiraahdo hebel qodax waa fariid ninka yara senatorka waayo ninka ragay mar uun buu damiir buu yeelanaya oo marka adigu wax wanaagsan doonaysid laakiin dulli doonaya in uu gunnimada uu yaqaan gobanimo de waa damiirka kuma siinayo waa diidaysaa oo aad ka badhaysaa okay kelmadda kale uu igu yiri ee aan raba inay Somaliland iyo xukuumaddu ay ninka gaar ka hayso nin kale hotelka la yiraahdo ambassador wallahi maantana waa ifbrina waa akhro bal isaaqa wariya no isaaqa qaar bayna ceebeynay walaalayaal anigoo cabdisalaan oo iska xeeraan oo bartaas ka fadhiya oo Faransiis jooga oo aan baarlamaanka Somaliland aan ahayn oo nin rich man oo lacag haystaan ahayn ayaa waxaan la yaabanaay soo doontay isna wuxuu ku faanay balidku kalamida dhageysta inuu nin kale hotelka ambassador ee habariyuna Sheekh Ali Saciid ee la yiraahdo hebel niyo farxaan waxbala ayuu yiri niyo haw madaxtooyada Soomaaliya waxa hor taagan oo kayu ugu wada jira isaaqi oo waxa ka le hotelka ambassador oo waxa isaaq sheeganaya ka hor
annagoo halkaas ka fadhina baad isaaqow 24 saacadood cuntaan oo nase kaa caydaan oo maagtaan bal kaas iyo aniga kaasuna wuxuu kayuugu jiraa buu ku leeyahay Muqdisho jooga xayndaabka laga celiyaa madaxtooyada inuu farmaajo la kulmo oo farmaajo sarkaan ana kii farmaajo bay walaalahaayeen iyo kii roommate-ka waxa dadka isku qolka degan ayaan ku lahaa farmaajo tala saxa ma wado oo aan la murmay ka kaalay bataaba halkeeda san iska dhigaya haddaba walaalayaal maanta iyo nimankan hawiye horta hawiye waa hawiyaan anugu macaayo waayo hawiye waxa naga dhaxeeya waxa la yiraahdo Soomaalinimaduna siyaasad ma calan ma aha waxa la yiraahdo waa sinji oo sida ninka Ciise ee Djibouti joogaba Soomaalinimada nooga dhaxaysa waxyaabo qaar way jiraan oo dabcan laakiin se hawiyaan waxaan ku ixtiraamayaa iyo waliba nimanka abgaal yiraahdo ninkii diyaaradda Hargeysa markii ay qoladan ciil qabayaasha ay amarka siinayeen abgaal buu ahaa taariikhda meel ku qorta ninkii lahaa dalkayga difaac diidi ma isaaq duqe yeeli ma gabigeedaba Djibouti ka rogayba markii soo Afrikaanka loo soo kireystay waayo diiruun baa jiro oo imika madaxweynaashii kan ka horeeyay kan ciil qabaha hadduu yahay Xasan Sheekh Maxamuud hadduu yahay Sheekh Shariif waxan oo dagaal ah ee hadla yaabay sidii laakiin waxa ku baabaayo inagu ma soo qaadin waana dad walaaladiina oo barta jooga qadiyad kastaba inagu qaadana oo anu waxaan qabaa waxan waxba lagu darsan karin oo de halkaas inay naxaastaan u mooyaan okay maxaa hadaba dhacay hadda ka hor Ali Mahdi oo isna mar madaxweyne Soomaaliya ka soo noqday ayaa lagu farmaajo ku yiri warqad aad magaalada Muqdisho ku dhex marmartid ayaan ku siinayaa warqada ku soco maanta maxaa dhacay aba darana war nabi Muuse sheegay wuxuu doqon hana u gargaarsan ninkii ku soo daray siyaasadaba ee isagaba ina baray ilaa Sheekh Shariif ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahaa oo waliba ninka suure geliyay Soomaaliya gudaheeda Muqdisho inay doorashooyin ka dhacaan ilaan iyagu been bay ku noolyihiin oo madaxweynayaal la doorashadu si kastaba ha u dhacdo ayuu ahaa maanta waxa laga hor istaagay airportka aadan cadde ee Muqdisho waxaana ka hor istaagay ciyaalka yar horta doqontu nimankan ma reexaan idhaahdo rumaan sheegaya anigu daaroon isku darmay laakiin ma reexaan baan ka hadlay ma reexaan ma inaad karbaashtid holle karbaasho dhabil lagu ciyaaro sidoodii oo baar calaana soo fadhiistaan mise inay garawshiyo iyo dadnimo iyo aad ka helaysaan Soomaali oo dhan oo isku kiin wada duubayay ma reexaan ha ka yaabina waynin hadduu seexdo oo soo toosada waa isagii wayna siyaad barro soo loogama taag waayinba oo intuu aayadihii beeniyay oo uu yiraahday saaq baan baabiinaya oo uu xabashi la soo heshiiyay soo afka ciid looma darin soo markii dama calaal kuma waalan oo xitaa 7 statekii ma lahayn aan la heshiiyo waa la garanay Cabdiraxmaan Barre ninkii loo odhan jiray isagana meel baa magaciisa ku qortayba ee loo odhan jiray isagana aan sheega warsama in doole oo la mareexana soo war nimankan in la heshiino soo muudidin kana nimay sanad ka hor waxaan ka hadlayay maanta hor yimaade horta ha ka yaabina hawiyow inuu sidii Xasan Sheekh Maxamuud ee gobonimada lahayd iyo Sheekh Shariif isugu wareejinayeen doorashada ay u dhacaysay inay mareexaan idinka hor dhaqaaqaan ha ka yaabina waayo waxaan hadiidan dhingid la dhicin dhingid waxay ku miirsadaan burkumaalka yaqaanaan burkoo lagu maaro way ta xaraan bay cuneen in xitaa siyaasadda Soomaaliya lagaba mamnuuca qurux badan waxa la yiraahdo dunida waxa jira waxado aaga dawlimaadka caagan iyo green zone iyo wareerkan in lagaba siyaasadba ay soo kalaanba waa imka maanta Soomaaliya way si kala fogeynayaan waana kala dareen xasan markaa ninka la Sheekh Shariif hortaadiyad baan ugu xumahay laakiin se Sheekh Shariif shaabuga maanta ku dhacay wax tarbu u yahay isaga iyo reer Muqdisho iyo hawiyaba wax tarbu u yahay waayo in badan baana lagu soo diray haddaan ma reesha asxaab oo leeyahay waa ka cadawgiin oo buluushtu waa ka cadawgiin oo ma naga shaqeyd ku lahayn imka maanta miyaan idin soo doonanay Soomaaliland waa banaanka iska joogtaa
waxaad ogaanaysaan oo mar labada waxaanu ka dagaalanay iyo waxan aan rag iyo rabbi toona aqoon ee aan isqabanayn ee aan kala dambayn ee gunnimada gobonimada u yaqaan waa ninkaasoo xasaanad busta waa run waxay ku doodayaan oo ay ku odhanayaan maxaa madaxweyne iscumaamaday bal inuu qabyaaladaysta yahay doorashadii puntland ka dhacday oo mareexaan baa gada degan oo jubbaland ka mid a buu ula dagaalamaya ninka la yidhaahdo axmed maxamed islaam wartii puntland ka dhacday miyuu soo faragashaday soomaaliya ilaahay haddaad garanaysaan oo dad muslina tihiin miyuu soo faragashaday miyaan isag iyo wasiiradiisi xitaa wasiirkii arrimaha dibadda oo nin majeerteena oo maxamuud saleebaana oo reer puntland miyaanay iska joojin nimankii doorashada puntland wadi maxaa faraqa u dhexeeya waa maxay puntland iyo jubbaland dastuurkan uu ku yimi miyaanu ixtiraamayn waxaan uu u dagaalamaya waxa weeyaan haddaba waa qabyaalad caddaan ah ogaadeenna ilaahay hadaayo waa niman fara badan waa niman maskax badan ma aha sida dhulbaantaan anigu aan u duceeyo mararka qaar ee iska daba cararaya un aayadaha dictatorka iska haysto aayado dictator bay iska akhrisanayaan dictator agoonta noqday ma aha way maskax iyo caqli bay leeyihin ogaadeenkoo waxbay kala fahmi karayaan maantana iyagana isku soo waxaan uu dagaalamayaa ma aha ninkan xitaa daaroodnimo maaha waa mareexaan iyo yaasiyaad barridi ogaadeenku markaa jabhad baa jirtay intiina baa idinka daba geenaya dhalinyarada inta aan garanayn taariikhda jabhad baa jirtay oo nin la odhan jiray inuu cumar jees oo ogaadeen ahaa oo jabhadda malaa s b m iyo magaceeda wax noocaasaa la odhan jiray oo la soo safatay markii ay dareemeen ilan qoloba marbay wax dareemaysay siyaad barre iyo kooxdan kacaanku ina ay dabargoyn isaaqa ay wadaanba oo arrintooduba aanay ahaynba jabhad baa lala dagaalamaya waxaa tahayba gebiga oo magaca soomaalinimo la idhaha warwan baabin oo kidee jabhadda noqday marka ina cumar jees xarashkaas u haya iyo mareexaan oo meesha degan wax allaala wax kale oo ninkaa kula dagaalamayo waayo doorashooyinka galmudugna way toosta oo galmuduggeeda habeen dambaan ka dhigan doonaa way tooseen waana iska celinayaan ujeeddada ugu badan ee uu ula dagaalamayo ninka la yidhaahdo axmed maxamed islaam sharciga ma aha dastuurka ma aha waayo dastuurka soomaali waa dowlad maanta nidaam federaala buu isagu ku yimi dowlad goboleed kasta oo xubinka ah dowladda federaalka waxay xaq u leedahay sidii puntland oo kaleba in ay doorashooyinkooda iyo xuduudahooda iyo guddidooda doorashooyinka ay iyagu maamushaan axmed maxamed islaamna wax kala muslim dadka shacabka ee reer jubbaland ee waxgaradka ah ayaa doortay waxaanay ku doorteen nidaam legal ah waayo isagu wuxuu doonaya buu rabaa inuu sharci ka dhigo waana nidaamka had iyo jeer dictatorka ninka la yidhaha waayo ninka dictatorka ah in la ammaano in isaga laga dambeeyo in uu wada qaato dee waa kii adeerkii baa la lahaa ila ninkani waa un adeerkii uma rabaad inagu soo noqdeen muxuu yidhi qayb wadaray leedahay wadar dadka odhan waxay wada leeyihin qayb wadaray leedahay haddaan qaata keligay dadka kalena wada qalo ma waxbaan qalluucsho qarankiiyo dalkaan dhacay waa tii u hadaraawi lahaa ma waxbaan qalluucsho qarankiiyo dalkaan dhacay buluushna waa iska daba socota horta hawiye waa taa nimankaa walaalayaal arrintan maanta hawiyena hadda ka hor injineer yariisow waxaa dilay fahad yaasin farmaajo uu ku lug lahaa waa waxay isla ogaayeen wuxuu kaga daba tegay ninka la yidhaahdo injineer yariisow meesha la yidhaahdo qadar baa lagaga daba tegay qadar yaa ka ah safriyaa ka ah waa qabiil iyo qolo yaroo reer waxasan la yidhaahdo oo fayr soomaaliyada ka ah safiirka qadar waa reer waxasan ilaahana kuwa nooma keeno weligana is arki mayno waxaana leeyahay dad somaliland ay yimaadaan madaxa ka wada joogta waayo waa fayras waa niman aaminsanba fahad yaasin waxaan uu wato nimankana waxay ugu baxdaa dadku idhaahda khalad iyo sax iyo been iyo runba ku idhaahda hore uma socda horta waxaas oo dhan hawiye way kusoo dhacaysa hawiyena wuxuunbay ka ahayd un soomaalinimo waxaanay dadka dooga sheekeen soomaalinimadu haddaba hawiyo soomaalinimadu hawiye maaha isaaq ma aha daarood ma aha siyaasad ma aha dowladnimo ma aha
calan ma aha soomaalinimadu waa isir way ka horreysay calankan iyo waxaan oo dhanba talaa maanta idinla gudboon talada idinla gudboon waxay tahay warnimo yahow intaan rag iska dhintaan inanka waxan baydaan iska qaban karin ma Fahad Yaasiin iyo dowladdii waxaanay ku fakerayaan haddii maanta ay Mareexaan ku fakerayaan Siyaad Barre oo kala ugu aaro oo Siyaad Barre soo noqday oo isaguna isleeyahay halkii Siyaad Barre ka sii bilow war Siyaad Barre oo cudud leh oo ciidankii Soomaaliyeed la socdaan miyaan wada la marin maalin kasta ma anaga idin bilaabayn anigu iminka isaaqa inta aan la hadlo waan ogahay hawshooda way iska wataan si fiican bay u wataan gobonimay ku wataan waana soo noqon doonaa wadaadka isagana maanta idinka ayaan waayo waxaan ogahay waxaan idin haysta war ninkan laajiga ah muqdisho waxba kama aha banaadir waxba kama aha dowladdan xitaa ay idin sheegayaan bal su'aal baan idin weydiinayaa waxay ku dhahdaan dowlad iyaga buluushadantay qorbahan iyo meelaha ka qayliyaan oo hadday dowlad yihiin gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe usbuuc ka hor waxa ka arriminayay oo magta u kala qaadayay beesha Abgaal iyo beesha Xawaadle labada beelood ee Hawiye wallahi waxa magta u kala qaadayo banaanka inuu arkin al-shabaab oo ka talnay marka ma idin dowladaysa Somaliland baanu hawadeeda soo gali karin ninka la yiraahdo Axmed Maxamed Islaam waa samir taagwa inuu yiraahdo diyaaradan ku arsanaya iyo hebel maantana dab buu ku ciyaaray dab ayuu ku ciyaaraya oo isaga uu daranta doorashadan baa ku tala galay inuu soo noqdaba horta halka waxa ka gubtay kaarkii ahaa inuu doorashadan ba soo noqdo hawiyana way toosan Abgaalna caawa sharaf fara badan bay leeyihiin oo waxa uu diray xitaa fulinimadiis had iyo jeer fulaygu markay xaaladu dhabaqdo ayaa miirku ku soo noqday inta hore ma garto markii horeba waadigi airport ka hor istaagay bal maxaa caawa ugu dirtay wasiirka arrimaha wasiirka amniga Abgaal isaguna haybtiisu tahay Abgaal hebel islu caawa loo diray Sheekh Shariif soo maslax wax noocaasa haddaad miskiin yar oo waageeniya tahay inaad u socotid ba ayaa qurux badnayd oo aana talada ka qaadan Fahad Yaasiin iyo Cabdinuur ama sida ragga maxaad halka joogtaa gedaad ka timi garbaar baad ka timi luuq baad ka timi meeshaadii MCH kama jiro waxaan social media hanaad ka shidaal qaadatid ee dadkan kuwan cadhaysan ee dhulbaantay iyo warsangiili iyo iska wareersan deegaanadoodii bay xitaa dhib ku hayaan way Somaliland waxbay u qabataa laascaanood maanta ari caday meesha la yiraahdo laascaanood waxa loo dirayay oo intii Somaliland ay jirtay horumarka ay sameeyeen ilan wax Somaliland xaasidun oo Somaliland isaaqun bay ka waranayaan oo hal xaasidoon maanta ugu dambeysay horumar ballaaran baa ka socday oo waxa la yiraahdo fit tiimam dhan oo u kala baxayay degmooyinka gobolka Sool haday tahay ari caday haday tahay qaar kale oo ka shisheeya waxaba habla la tababaray oo caafimaadka loo tababaray anigu waxaan leeyahay xukuumadda Somaliland markastaba shacabka way waxaan iyagu sidoo u dhaqmi jireen waa dad shakhsiyad xun bay ahaayeen waxay daba galeen inagu yeena u dhaqmo halay la saanood markastaba shacabka haday tahay waxbarashada haday tahay caafimaadka way Somaliland hal laga caawiyo hal la barbar istaago Somaliland majority-goodu waa la garanayaa ilaahay baa dadka qabiilada ka kala dhigay Somaliland waa shanta gobol ama waa 6 gobol dabcan waa gobolka kuwii lagu daray anigu ku daray maayo waxa weeyaan gobolka Hargeysa Imrood Sheekh Awdal Saaxil Togdheer Sanaag Sool war waxaba wanaag u wada ayaan leeyahay waayo hal la mid noqonina idinku xaasidku waa darajo baad ku helaysaan maanta halka habliyi waan ku farxay waan daawanayay waan la socdaa waa koona kasta anigu waan arkaya habla reer Sool ah reer laascaanooda oo la baray cilmiga umulisooyinka iyo dadka inay caafimaadka gargaaraan waayo man la yashkur naas la yashkurlah laascaanood hadda ka hor waxay tuulayar waxba kama jiri jirinba hadda iyada guryaha kirada marka laga hadlayo laascaanood iyo burco waxa kira qaalisan laascaanood
qof kastoo caqli lahoo aan ahayn buluushtan beenta ku nool marka uu laascaano tago wuu ku nafisaa habi buu ku noqdaa wuu soo halkaasuu wax ka samaystaa waa taasoo maanta Hargeysa bal mid sharwadaa mooyaane waxaan tusayaa fanaanada la yidhaahdo Maryam Muusal Ciise waaba tii uu soo booqanayay gudoomiyaha xisbiga wadani waa taasoo Hargeysa joogta ma cid waa shaqo u tidhi ma fikradeeda lagu qabsaday fikradeeda wana ognin oo iyadu Soomaali weyn oo tacaalankeeda iska siita qofku haddii aanu siyaasadaha dhex galin oo aanu dadka dhibaato u geysanin cidina Somaliland gudaheeda mashaakil cid kuma samayso mushkiladna looma geysto waxaan soo noqonayaa ninkan iska dhigay wadaadka ayaan dul istaagay caaw horta anigu wadaadu ma waxaan u arkaa diblomaasi waxay Soomaalidu taada muslimna uu run sheeg muslimna run uga qaado wuxuu ku doodayaa uu yiri maxaadara wada war maxaadarooyinka masaajidada lagu qaban jiray waxaanu haysanaa ninka la yiraahdo Hargeysa jooga Sheekh Dir Sheekh Ismaan Ali Xuseen Sheekh Ismaan Laangare ninka la yiraahdo Sheekh Mustafa Ismaaciil markuu doonay yimaada even xitaa aadan siiro oo masaajidada culimadu soo ma yahaan jirin kuwa masaajidada ka gala tafsiirka ma masaajidada Hargeysa calaamataan ha noqoto Ibrahim Dheera ha noqoto mustashamaca ha noqoto meesha doonta ha noqoteen bal inay waxaan wax ku dhex jiraan wax u degamsan baa jira ma masaajid baan ku ogeyn in lagu qabto xitaa tabliiqiintii ugu badnaaba sanadkan Hargeysa yimi oo isaga yimi all over the world oo Soomaali laha oo Muqdisho ka yimi oo Garowe ka yimi oo Kismaayo ka yimi oo Jigjiga ka yimi oo meel kastaba ka yimi oo kuwa markiiska weyn ee Hargeysa ku qabsanayay waxaan hadiya jeer sorry ay qabsadaan qolada tabliiqiinta waa kuwa halka ku qabsanayay Soomaaliland badooda soo gashay ma xukuumad beeriyay ma cidla hadasha waa maxay waxaan tababar baan qabanayaayo tababar dadka guur ma imkeenu guurka isbarayna guurku iyo nikaaxu wuxuu yahay kitaabtana waynu ku haynaa waynu naqaanaa laakiin san ninkan oo farmaajaysan oo arrimaha siyaasadda dhex galay ayaa wuxuu ku leeyahay waxaan ku qabanayaa tababar baan ku qabanayaa ama waliba $10 iyo muujal lacag iska soo qortay oo waliba caqligii buluushta xukuumaddii meesha ka jirtay wariya lama socodsin meesha maan xukuumadda ka jirna waa inta badan had iyo jeer doqontu waxaad uga digtay dalabtaada waxay had iyo jeer ku doodaan oo ay bartaas soo dhigaan oo iyadana caawina dul istaagay horta Somaliland iyo barasaabka gobolka Maroodi Jeex iyo guud ahaan amniga way madaxweynaha maba khusuusaba laamaha amniga haddii booliska haddii barasaabka congratulations hambalyan leh waayo loo aan rarba meesha ka jira ma aha meeshu daaqadu guru iska soo galay oo caqligiisa yare gaaban ee maskaxdiisa yare kooban nidaam baa ka jira dunidan xadiiska wuxuu oranayaa madhabaha had iyo jeer afar madhabood baynu haddaynu nahay muslim maalikiya iyo xambaliya maalikiya iyo shaaficiya iyo xanafi iyo xambali طبعا oo marka aad xitaa ifan dal kala tagtid haddaad Pakistan oo kala tagtid ama India oo kala tagtid waa inaad ku daba fayshid imaamka meesha jooga haddaad waqooyiga Afrika timaadid oo had iyo jeer u badan maalikiya waa inaad iyagu ku daba fayshid ma shaaficiyadu waa waxba marka waxaan ana tayada iska wadanaya diintii baa ka maarmi weyday in madhabaha meel kasta marka aad tagtid qolada xukunka joogta iyagu imaamka inaad ku daba fayshid isna inta Hargeysa ma kuleeyahay hodeel baan si kareystay tababar baan qabanaya barasaabku uu saxsanaa hadalkiisu run buu ahaa waayo may joojin maxaadaro weligeed hadda iyo ka hor toona Somaliland lama joojin manay dhicin halkee maxaadarada lagu joojiyay maxaadarooyinka soo kuwa masaajidada intaa ka socon haddii maxaadaro la joojinayo oo nin masaajid loo diidayo waxa loo diidi lahaa Sheekh Aadan Siro oo inta xukuumadda dhaliilo oo marba maalinba meel yar kaga yimaada walaal war masaajidkaas uu tujiyaa xawaadle inaga daay ninkaas masaajidka uu galameynay waayo Somaliland dhaqanka ma laha culimadana ma doonato okay waxa ay hadaba ku doodayeen kuwa culimada lay qodobban la xasuusinaya dhalinyarada Somaliland yar ee markan dambe dhashay 1975
1975 meel ku qortay maxamed siyaad barre wuxuu laayay culimadaa wuxuu ku laayay aayado qur-aan oo beeniyey oo waagii lasoo saarayay wixii la odhan jiray equality-ga dumarka iyo raggaa siman ayay waxay soo isaguna uu maskaxdiisii intuu isu geegeystay iyo cilmaaniyaddii iyo balaayadii watay ayaa waxaa buu yidhiba ragga iyo dumarku waa isku xuquuq wax nisaal ah aayad dhan oo ilaahay qur-aanka uu ku soo rogay buu beeniyey waday tahay الرجال قوامين على النساء إن دمركم نسيهين أو أي كنتم يهين ما بشر يسوي علماء دي بقى واحد سميين أو دلنا يراو بدنا مركا إن ميكروفون دي مقالة مقدشة قاستام أو مقالة دي كجيا إن كسوت شديان تفسير رأيلين ورا آيات دان بوم وقدوتي سوقاتين بلوش توي شوكتي مركا كوا ما أنت إذن كوا أرنايا دين تا دينتين لأنه قلب كستو أي كهلا دود دي بانو هيا بلوش تمارتا كوي توغني ولي علماء دا وان وي قرا أي حدنا حتى هو وي قرا وحلا حدنا ملا وحبا إذن دمانو وحن مركا لدود سنة والله يابا وحلا حدنا أبوان كوين اللي دهدو عبدي آذن حاد قيس وابسي سلامين وحر مدرو تدبي تمنشر وحر نشر نيو جنادي waa noo soo wareysay war goormaan la diriyay jannadii waxay ahaan dee jannadii bay galayeen qisa kalena wali bay la socodsiinayeen markii sida loo tooganayay askartii tooganaysay roobku muuhin iyaga iyo halkii lagu soo tobankii culimada ahaa bartii ay ka safnaayeen roob baahi isla qisa kale oo markaa Muqdisho ka dhacday magaalada Muqdisho laba diyaaradood oo u duulay inay mala dabaaldeg iyo wax noocaas ay aad isjirayba ilaa diintii ba meel ka dhacay buluushtu markaa maxay lahaay hay siyaado ma labi istaadka wadaadaan gaari baa la dhacay 57 ma gaari baa la dhacay wanika aayada iska dambeeyay way ku taageersanay maanta idinka rawaadaha qaar idin la imanayaan waliba marka ay culimadaasu ay mudaharaadka sameeyeen wuxuu ku maqnaa meesha la yiraahdo ceel jaalle ku maqnaa dabatana waxa la yiri war culimadii oo hal soo qabto والله حرق وأخوات طبعا عشان مركي حنايين لو بدو توكتي ما حان عاي ما أنت دم باستاديوم كوين تبى تنوع حقوقية علماء دي قارد دي بقنية الشيخ علي صوفي كم بدها شيخ هبه الصوفي كان مارتي إن كيسو قدر يميلها تشو أو وليبا لقوري حي ويلشر سو كبريتي قريب مسوح كلية هاي وأخوة علماء دي أنا ما حولي من لاي عيال يرى دبتشرين بين لاي ودين تا ورماني ما كآياتها قرآن كدفاعي بدبتشرينها باريا هرت هذيك قالني مو أيو وحشة سو إيجا قالني ما بكو أرورا إيجا وحنا كهلا نورن إيجا شقدود وحال عيب تو تقارك بيعمل كيس إذا كيد لصوتهم ثان وحن دول استاجيها طبعا مركنا كهلان سكول كل ده هدو أبارسو وعاو waxaan ugu talagalayna wax far badan banaanka soo dhigo iskuulka lahada abaarso in badan bay hoos dhigeen wali anoo ka hadlay meedaan arag way anigu waxa hadaan xogtooda rasmiga aan hel kama hadlo xogta quriyaan ka helay iskuulka lahada abaarso ayaan idin sheegay waxaan ka helay oo imka nambaradana waan badbadaa hadii jeer oo nambarkayga ay igala soo xiriirisay gabadh waliba ma reexaankoodaas hadday dee nooshay ama clipkii gaarto waxaa laga yaabaa inay ka soo hadli doonto laba inan oo iskuulka abaarsa laga soo qaaday oo Mareykanka scholarship waxbarasho ka helay oo waliba Soomaalinimada jecel oo diintooda si fiican u haysta ay gabadha soo xidhis oo barta ka wada hadal oo salaam ma sha Allah qofkuna Mareykanka ay ka buuxaan waradar dastuurka Mareykanka ay u dhaarteen qoladan iska dhigaysa inay diin garanayaan waxa ku qoran in ninka labadan iskuursadaan ma iska yimaadaan haddii ay diintan ay saxba u haystaan ay ku soo gabanayaan iskuulka abaarso ku soo gabanayaan maxay uga yimi waay wuxuu dhigayaa dastuurka Mareykanku in ay homosexual waxa la yiraahdo maxay uga yimi waay hadday daacad ka tahay waxaas oo dhan waxa loo sameeyaa Soomaaliland iyadoo la dagaalamayo oo isaaqnimo lagu diiday baa tabana wax ninka yiraahdo Cabdimaalik baan nin sheegay ay hadiya jeer ay ku soo halqabsadaan anigu caaw Cabdimaalik xitaa habeen dambe waan ka hadli doonaa wallahi kabahan la dulmaray waayo Cabdimaalik 5 jeer baan wada hadal
anigoo cabdisalaana waxaan ku dhahay somaliland maadaama ood aragtidan wadatid anigoo cabdisalaana ba xitaa ma tegi karee waayo waa kibir dee looma baahna war banaanka haa ka joogo nimankaa u tegin waaba isaga tegin waxaan ku dhahay weerar baad ku wadaa meeshii waanad weeraraysa haddana waxaad la dawan tegaya dee hawkam ilaan caqliga waxa lagu siiyaan ku kala garatide maaha inaad dabin lagaaga boodo oo haddaad xitaa khalad samaynaysid ood khalad somaliland ka gelaysid dee banaankaa ka joog okay cabdi maalik waxyaabaha aanay dadkani ogeyn ama way ogyihiin ay ku xumaynayaan somaliland maanta waxaan haystaa ee maxkamadda uu kula jiraa maha somaliland xukuumadda maaha iskuulka xitaa abaarsa maaha waa waalid bal qof kastooba imagine dadka u doodaya ayaan iyagana halkaa furan maray ninka reer lahada cabdimaalik laba dhalinyaro ah oo wiil iyo gabadh walaala ah intuu sawirkoodii soo qaaday ayuu wuxuu yihi waa qoomolood hadda waa walaal bal haddaad adigu waalid tahay maxaad dareemi lahayd qof kastow ila ubad baad dhasheen ubadkaagii oo inta inantaadii iyo inankaagii oo sawirkoodii inta lasoo qaado doona public mediaha lasoo dhigo la yidhaahdo waa qoomolood maxaad adigu dareemi lahayd dadkaa daba dacweynaya ee maxkamadda kula jira ee kiiskooda loogu xukumay dee waxaa dareemi lahayd waaban toogan ba lahaaba anigu ubad aan dhalay haddii qof aanan garanayn oo intuu meelaha ka yidhaahdo waa laba oo hadda waa kuwii wada dhashay ee hooyada iyo aabbuhu wada dhaleen oonu caddaynteedii hayna oonu soo dhigi doona waa in badan baad idinkoo raba inaad somaliland dumisaan oo isaaq iska neceb baad rabtaan inaad noogu soo gabataan waxyaabaha qaar bulushay war waan idinka horeynaa waan idinka sokaynaa waan idinka shisheynaa waxna ma baadhaan researchna ma samaysaan waxun baa iskala boodaan iskuolka andarka hebelka baa yimi oo hadduu yimi qof buu ahaa lama culimay leedahay somaliland qofka gaaloobaya iyo qofka waxaa qaadanaya iyada oo aan cidiba u teginba kuwana maraykanka buuxay meelaha ka jooga maxaa aad ugu ololeysaan aad u ixtiraam walow anigu aan kaba gaabsadoon dumarka waxba odhan wadaadka iminka maanta la sheegaya la leeyahay qaar ay soo dhigayaan wadaadkaasaa loo diiday waxaanu haynaa codkiisii waxaanu haynaa oo caddayn ah isagoo taageeray inanta had iyo jeer soomaalidu dee iyaduba runtii u badheedhade waayo dunida inaynu joogno freedom of speech anugu iyada waxba ka odhan maayo laakiin waa waxay u badheerhsan tahay ilhaan cumar waata u ololeysa dabcan iyadoo ku dhex jirta inaga arag wuu taageeray wuxuu yihi idinkuba dalxiisow waa tunteen durbaanke madinaahadeeda duryankii ka weyneyd war ma kaargeysa yimi baa dembi gaara leh kii maraykanka joogayna waxaad leedahay waan hayb baan ku taageeraya niw qabyaaladan anagu waan idinla fahanaa ninkan wadaadka iska dhigayaana wadaad maaha somaliland meel nin yar oo maanta oo siyaasadaysan uu wax bari karo ma aha culimada ugu caansan soomaaliyeed ee ugu cilmiga badan ayaa hargeysa ku nooloo joogta waa taamirka sida ugu waaweyn lagu qabanaya marka nin boardka isku soo qaraya oo weliba yidhi lacag baan ku qaadanaya waa the first time waa markii ugu horreysay iyagaa dhahda farmaajo waa markii ugu horreysay ee diyaarada doosho waa markii ugu horreysay ee roobku doo waa markii ugu horreysay ee wadani qof wadaniya la helo ilma markii ugu horreysay annagii baan ula timaadeen waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay nin nidhi maxaadaraan qabanaya u idhaahdo sidii showga oo kale lacagha lagu soo galo aniguna waan idin imanaya reer hargeysow kusii talagala anigana showga halee camiro haddaan cabsanaan jirta maana waayo aniguna waxaan idiin qaadayaa heesaan leeyahay baleega buluushtan balaashta la moodo beenta iyo riyaday ku jiraan de waxaasaan idiin qaadaya maxaa kale jiraba intay been baaba lagu imanaysaa lacag maa reergeyso lacagta waa iska bixisaan bade anu reergeyso idinkaa baan la yaabanay qofkii idiin yimaadaba u qabta show war waxyaabaha qaar lama show baad dee u qabanaysin horta kaana halkaasaan dhigay waxaanan leeyahay horta nima yahow dictator waa dictator waa dictator waxaan leeyahay nimankaa hawiye allahu mustacaan maanta madaxdoodii waxaanay muddo idinku socdeen muddo hawiye oo qurana kumay socon waxay ku socotay oo kow dagaal ka soo bilaaba oo ninkan yar isku dayay ee riyoonaya ee kabaha cad isagoo cagcad iman doono baar calaacal
kowdii horta somaliland buu isku dayay inuu idhaahdo dhaqaalihii somaliland new dealkii uu ka jaro, inuu idhaahdo IMF-ay hala shaqaynina, inuu idhaahdo somaliland arrimaha humanitarianka yaan weliba wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo kan qorsheynta waxaba isagaa dee intuu xaafadiisa ka dhigtay isagaa marursanaya. Okay, way shiiqaatay. Puntlandna wuu ka soo baqay oo Puntland uu ka baqay oo iyadana muu yaraysan oo waa kii Slibrigii dhawada doorashada meesha ka dhacaysay qof adiga ku yeesmaana oo mid shabiye loo oran jiray keenso laakiin shax kale dabadna dib uga fadhiistay. Okay, Somaliland way ka badisay. waxay haatan ay haystaan waxa weeye ninka la yiraahdo Axmed Madoobe. Axmed Madoobena wax kala kuma haystee waa meeshan ama reexaan jooga meeshan la yiraahdo Gedo oo waxa la talinaya ciyaal yar oo aan rabaxasa oo la dhacay meero la Cali Yaasiin oo deelma ma la yaacnay rin wallahi carayga hayso hor dhiibay oo reexaan kibriya ilaahay ka warba ninkii Ciise Maxuud war goorma rag sudan u go'ay warba ma reexaan kibriya iyo reerow ya subhanaka ya adi وابد الدنيا آخر الزمان والله هو بالأوتو لا هو الدنيا آخر الزمان رجع ضرورة طبيعي شاور مساحة كي يدعو شيء كفوشان مو حاساي ما لها أنا أقول لك إيمان كرانا ده يديك قبل إنك الدفاع يا الله يا بني هو يوم أنت مركا يدك كنا رجع سكدي قرح بني سويرا كا أحمد مدو وقات كان يا بنان كاسة كلام مريم وحا وضو مرة إثيوبيا هذه إسرائيل إثيوبيا كينيا حتى ديارة مريك سويست وحن أردن وكوفا شلمية نكنا كلية وحويان توش سياد بريار هذي هو ده منا قادنا يابا واحد اللي تقنته واحد قلت هذا قبل ما متابع من قادنا يا وحو كشي دال قاطع شن بلوش أو سوشيال ميديا كتير يشن معندك لترياش السنة وانا قاعدين شاقي لتريس كوبات وساعد وين أديركي كوريا قرن كان دمبو حوار كي عبي لو وادك تتري أفر مريحانا iyo afar buluush oo caareysan oo ku dhurmaanta Soomaaliland ka soo cadhooday iyo kuwa bursigeeyo dareeyay isaga caareysan iyo dad iska wada dad cara ciid iyo cara ururtay ay masuulay inta social media sumba loo daaraa qariya buluush taade qaaqa sunuskaasay meel ay la haystaan baad garanay noolo madaxweynaha waxa soo moodiya mugtay waray oo Soomaalida ka dadkii kala maxaa halay dad kala de maba garanayaba inta suumba waa bartiyaqaan bare uma korodho inta suumbu ku wareega marka maanta nimanka hawiye waxaas oo dhan dadka qaar baa waxay leeyihiin anigu dadka la mid noqon maayo hadaan cadsanana Ali Mahdi laftigiisa markuu waxa ku sameeyay da waxay ahayd isagay liidnimo ku ahayd waayo qofku had iyo jeer halka ay dadku wax ka eegaysan inta badan ka eegi maayo waayo ragga aboonintaha ee maskaxda badnaa aqliga badnaa markuu siyaad bare uu cidna u qabsoon waayo reerkiisuna ay lahaayeen iyo buluushto hay iyagu waxay aan kuba socda waayo qofka marka daratid inaanu aqli iyo garasho aanu lahayn oo adab aad ka hor joogtid oo dabada dabkii ku sii dhacayo ku sii socda war waxan waa dab waad ku gubanaysaa de ku xiiqimaysto xornasa kuba socda oranaysa waayo doqontu marka dambe soo barorta waayo balada ama qabasho loo gaariyana laha laawan xariste maxamed xaashi dhamac gaari balada ama qabasho leh daba qabani dhib aragna ugu aqoon daran hadhow bay soo calacalay wallahi gaariga soo galaan wadan jiray bar calac Ethiopia ko lijiram sa gaarigii soo ag mara wallahi darajada soo galaan lahaan jiray oo maadika kibrey sidii ka dadku ku kibrey isqaban waayay oo aqliba yeelan bakariba waayay ruuxan kori hoos baan la hadal حتى هو أنا يمر كار نكير برعو سو قادين شري لودين شري دو عدل dadka burco dhibi jiray dabana maanta ku war dad wacdi falaabo warni oo maxaa tolka ku qaban waay ku jawaabay tolkii baa aniga ugu fiican dabada nimanka u dhaahdeen nimanka wax garadka ah manikaagan waalan ee dumarka qaadanaya dadka dhacaya baa tolka ugu fiican misuudu ana idin sheegay sababta ugu fiican hadii nin iga fiican jirada way qaban lahayn oo geed bay ku xidhan lahayn oo dadka iga qaban lahayn horta ninkan dadka reer ka bay saa ugu fiican waxa uu khaldayo oo dhan hamoodina inay dhalay ku socda taariikhda wasadan sano kadib inay mar labaad Soomaali ku soo noqdeen oo ay mar labaadna la yimaadeen wuxuudii xilka lahaa ee maxay ah dictatornimadu waa qayb doqonnimada kamid ah waa ninka raga waa in uu qabsoomo
waa in uu tanaasulo raganimadu tanaasul ku jirtaa waa inuu doorasho ma ogola hadda ka hor marka xasan sheekh iyo sheekh shariif ay tagi jireen ay gooniba ficnaaba ka dhiganayaaba inay dadka caayaan war sheekh shariif baa yimi xasan sheekh maxamuud xusb oo muxuu magaalada sima joogo war waxay iga dadig waan bergi midnaba qaran banaanka uga boodaan war dadkan waa waxay deemalaa kuwan maskaxdooda caadi ma aha bal nin magaaladiisii tagay oo muqdisho imka waa aniga burcad cabsan oo dabandana cabsan wuxuu burcad tagay oo burcad meeyay magaaladeedii baa hayba wana ma qoranaya marka qaar aqligooda niyo wallahi waxaan noqotay isaaqun baan noqon marka hore ma Chinese baan soo isaaq ilaahay bay gama dhigano qabiilkaygiiba ma ahaba soo dikanadu kuba qabiilka wata war waxaan horta inaad la dagaalantaan mooyaane aqli kale iyo maskax kale oo u kordhaysa wallahi baan jirin Soomaalina halka iyagu hayba iyaga dumiyay wixii ay iyagu dumiyeen ay baabiyeen bay rabaan inay maanta dadka hay ruwaayad iyo khiyaali ay ugu soo meeraleystaan horta walaalayaal wixiisu waa argoosiga la taliyaashiisu waa ninka lahda saacidna waxaa looga argooyay ninkii la odhan jiray Jawaari la taliyiisa kalena waa Ibrahim Madaxay iyo mid yar oo ciyaalo Cali Yaasin lahdo masasada jaqa iyo ninkan la yiraahdo Fahad Yaasin oo feerkiimo haddii Soomaaliba rogmato isagu hadhow shaad Ethiopia soo xidhnay waayo waxay ka yimaadaan Ethiopia wana waska wax yar oo aniye ayaa iyadana halka dabcan ninkanna ujeedada ugu weyn ee waxaan uu sameeynaya waxa weeyaan siyad bariyadii laakiin si isagu bay u daran tahay mar dambana kuma soo noqonayo Soomaali ogaadeen wuxuu kula dagaalamaya in Umar Chess oo SPM aha Puntland uu isku dayay laakiin uu ka soo baqay oo iyagana SSDF markii dambe ay iska noqotay dawati hogaamiyahoodii laga xidhay Allahu naxariisna kaloon jiray Cabdullaahi Yusuf Axmed Somaliland wuxuu kula dagaalamaya oo isku dayay SNMP hayaan oo nimankii iyaguna marka hore ka cadonada iyo waxa soo dhan bilaabay tooshkiisuna waxa weeyaan wax kale oo qabanayaan ma jirto dadkana walaalayaal beemtii inta laga badiyay ayaa lagu dii mashqac baa lagu dii way tan Friday beem baa loo sheegay falimkan qodobka ugu dambeeyaan ku soo gabagabeynaya waxa weeyaan ninkan wasiirka waa maaliyadda Dr. Bailey صدح سنة وعلى حاليا وحو كسو عليا دين بين القعفنية دين بين العفنية دين تستبال وعفية ورميضان حتى تضوح خرستا ميضان هين ما الدل آن أمني جيسو سقنين ما الدل آن وحبرشا ديسو هذا هاي تي أساسي ده هي تي سرق تي دحا متنا بقى أنا شقينين بقى دين القعفية واي الدين تمرك القعفنية وانا أمني جيسو سكورتي وإن education كي لغلا دعالة يو وحلا هذا صبور لماذا أما بورك أو كلا فقير لماذا إذا كبسوا آخرستا ما يسوون بواحدين شيء هل كان سويد نسوا تاجين وبنتي وحلا له واحد دين ولا قاعد فيني مترس سبب طعم وده خيالي وحوار كي تتكلم بين الله شيء كرام ممكن نقول هذا مصطفى قضح الله يبارك السنتر كورحول ماشي خيالي بالله يا بين بل أنت بينات أيدين شيئين ضيع تدخل ما أنت وجود مركز للرفعة ملا وحجانسا حتى قارب حيد كل هذا وحنا سمعنا إن الدور election هذا free and one man one vote سدوا صورة جاكتا سمعنا لأنه دوكتين إن بتقليتها هاي أو أمني جد السبية هاي أيا إلا إمي كذا عقبة ظهورية لان هذا هاي سامي قيبس ويدور شو إنكو عقبة بدن بيلين سمعنا لو بقى ما يمني لكن هذا إلا إمي كذا طبعا وحيابهم بقى بياهو قبل هذا ولو أنا نقول حاجة لأنه أنا كوميشنر أنا هين هذا أهرني بيشرت أو أي سومالان أي أقبل هذا هاي دور الشدة برلمان وأنا أمني يقرت سومالان دول كده دور أمني أو تعيدن كبير عليه ما حد يقول هذا دور الشدة سمعنا وين ما هو فوده ولي واحد يجي سنة ما لين بقف بينتو وأنا كلنا شري مروده وأنا كحشة ولا جينا أنا ما لين بسواه الكلام كله عشيري يموت حليميري بقى نقطع عيارت Uganda تتوقع تري دورشة وين ما وفوده بالله سمعنا يلا بده هوني يلا بعدين وردت كريم أنا كم يقول هذا هو ولي دت كان أيوه الرمان ولا باوالم با دورشة على سمعنا يا بدر هذا كورو الشباب بان 2 years كسو قبل بيني بالانتي ماذا الشباب سكون ما كلام كرام كله تقالمين سكون عشور تقاضي سكون شرعي وقدم بيسي تدكي إسرائيل ديده وخلقات قبل كهيران يمشي اللي ده شبه الله ده هويه وكلا قاضية أبجل يحوله وكلا قاضية حاجة ماذا العكس يقول هاي وانا دي سمعنا
lacag baanu samaynayna waa been bikhiyaalin baa laydin sawiraya meeday oo kale allaha mustacaan diyaarada idinku odhan jireen kan wasiirka diyaaraduhu Somali Airlines baan soo xilinaynaa hadii lingebigoodaba imika way less than 1 year ba u harsan sanad ka yar weli wixii baa laydin sheegaya masaadana weliba wuxuu doonayaa inuu idinku soo noqdo inkastoo maanta kaarkaas uu si fiican uga gutay waayo maanta wuxuu isku doontay bad buu isku galay bad Sheekh Shariif ma ahaanin fudud doorashada soo socotana isaga u taagnaan doona waayo halkaa kaarkaas ayaa kaga gutay kaarkaana ciyaal baa ka gooyay horta intaas oo balamood baa laydin qaaday waxa la wax ka soo roobay ma jiraan haddana weli way soo taagantiin dee jaajuur noqda haddaba jaajuur caadi ba noqda ilaan dhagaxaanta wax dhagax noqda dee anigu wax kale oo ku dhahda garan maayo war waxana ku mudaharaadaan oo aad iska soo caydhisaan afartan ciyaale ama wasiir maaliyadeed ha noqday beenalaha la karan sima sameynaya lacag baan sidan ee weliba daaraha idinka soo dhisanaya iyo ra'iisul wasaare xigeenka isaguna dabaqadeeda ka dhisanaya wallahi idinku iska dulqaaday mooyaane cidna idinka dulqaaday oo idinku dadow war dadku waa power bay leeyihiin midaan ahayn dadkii ilaahay karaamiyey reer muqdisho bili aadankii ilaahay karaamiyey caqliga siiyey maskaxda siiyey miyaydaan ahayn war Soomaaliland oo nabadgelyo ka jirto oo habeen badh iyo maalinba amnigooda la ilaalinayo oo caafimaadkii dabcan wax lagala qabanayo oo waxbarashadii uu imika nala leeyahay waxbarashada xitaa ta jaamacadaha dawliga ba helaysa scholarship ayaa haddana intaa mudaharaado iyo dhaliila ka socda idinkuna midaan waxba idin qabanayn waxba ayaa idin dawladeynay le dawlad baan iyo waan idin dawladeynay markaan nimayahow oo waliba dictator ciyaalka amar qaadanay war aad iyo aad kacaankana wax allaala wax ay Soomaali ku soo kordhinayaan oo aan dhib ahayn ma jirto horena way ugu sameeyeen arrimaha Somaliland iyo taa dib baan u dhigan doonaa insha Allah taala wuxuu baan leeyahay nimayahow warka laabta ka qaata Jubaland guul bay ka gaadhaysaa waana ka tashatay waxaan oo dhan u sameynayaan waa Puntland waxa nimankiina deegaanka Muqdisho degan niyo waxa leeyahay billahi alaykum siyaasiyiintiina halka hawsha ka wada waa ninkan isaga isfishiliyay ninba waxa laga hay hebelow anigu ku sheegi maayo camalka ayaan ku sheegin isagoo doorashadii Puntland u hambaliyay oo Puntland waxeedaba oqol inuu dhaahdo Jubaland baan anigu waa in aniga laga maamul qaata wax reernimo meesha ku diiday ayaa maanta madaxweynayaashii ku sii socday cali masaar way doorashooyinka goormo reer galmudugna way tooseen oo dabcan isagana waan u hambaleynayaa wasiir xigeenkii maanta dhawtay sacasilay ummaduna way wada toosaysaa waxanayna munaafaqa ilaahay baa fashriya way marka hore wadaniyadu Soomaali ku yimi iyo anti Ethiopianism waxiiba wuxuu ninkiisii buu noqday kursigaana horena walaal idin si sheegay Soomaali oo in ku ri wallahi ka amarta inaanu dhiig buu idinkaga tagaya dhiig ku taato way ficiladiisa arkay isdoo dhaqmay inuu dagaalba dhaco waxana waa wax awrka hore bay Soomaaliya awrka dambe hoggaan qaadkiisu leeyahay kamid doorasho ma ogola xisbiga ma ogola qofka aragti duwan waxa uu haystaan kaba gardaran yahay oo isagu dukaan meesha leeyahay marka dagaal wixii aan idin sheegayaan inta badan ka digay baa maanta soo degdegay laakiin se waxaan leeyahay guul bay ku dambeynaysaa guul ayay ku dambeynaysaa waayo isagoo afar ciyaal oo yar ka amar qaadanaya Soomaalina waxba soo kordhin maayo xasan sheekna waa kii hadlay lahaa hawadii Soomaali loo soo celiyay wuxuu ka dhigtayba wuxuu ku argos buu ka dhigtay deesaga doqontu iska ciideysa isaga iska ciideynayo isaga buu xisiyayaba laakiin waxa nasiib darro ah kuwan qurbaha jooga ee horena soo qaxay barca aan meelaha ka soo qeylin jiray niyo meel aqlaba u kordhin langugi ku kordha haddaanu gabo mooyo ku tarin garaad Axmed Aatid geed waxba badee waa nimankii Kenya ka soo qaxay meesha oo carray maanta todoba qof baa soo noqoteen waa isla idinkii un baa haddana maanta inta Facebookida soo fadhiisateen ayaa kosa maxaa inta dambe soo qaxinaysaan inta dambe halka idinka joogta haddana dib baa gabigiina mala dalka anigu warigi horeba dee uga sii fikiriyay war kuwan maarata barbarkii bay ku dambeynayaan isugu meel aniga taanaga ka sii qora
barbar nimankii barbarka la odhan jiray ee Croatia deganaan jiray iimkana sigaarlayaashii tabaaq iyo meelahan Europe dawarsada wallahi tabti bay ku dambeeyeen ilaa baa ku dhaartay waayo barbarku dalka ku yaala Central Europe ee la yiraahdo Croatia bay deganaan jiray dad dhib badan bay ahaayeen oo aan isna qaban sida buluush doo kale tabeetana waxay wadaanba waxay isku doonteen makaniisadii wuxuu dumiyo aakhirkii waxay doonteen taariikhda ka soo baara oo dawlad akhrista waxay doonteen nimankii Talyaaniga ee Roman Catholic waa loo fakiray waxay isugu batagayba markii ciidaba ka nabad gali buu yiri bal markay farmaajo heebtiisa ka nabad galay isaaqi bay doonteen Soomaaliland buu isku qaaday markii bil waan wax la taliyaan hayno dee wadada la rugay moot Soomaaliland buu isku qaaday ka jar Soomaaliland humanitarian buntland buu doorashadan dhex galaya iyana 5 iyo eber bay dareen Soomaaliland 10 iyo eber bay dareen hawshoodina way iska sii wateen musabix oo dambe ka hadlay ma aragteen way barigeedu ku la yaabanaydan musabix fariimu diray waxaydan idinku dareensaneen baa jiray oo xukuumadda Soomaaliland oo waa ninkii wixii Soomaaliland ee hore u socday hadda isagoon Muqdisho sanad ba joogin ba halka Soomaaliland war ma nimankii saaqay sanamta gibigooda baa laga soo jaro risqa baa laga jaro wariya dagaal haddana waa kan maanta buu waxa shimbiri maalin bay dab qaado maanta horta wuxuu isku doontay nimankii hawiye ayuu isku istaaray oo dee balaayoyinka وما نخاف قبل أن نقص على كلامه بروح هتكي شيء نما كاب باربر كامر كا روح يوضان با بوالوت الشباب بقولتو يوينكي إيو مكان سديه رأي يوروبي هوركون مارتا روحنا نسقافنه دجا على بالو قاعدة مثلا لولي بقارد إنه كسرنا بيجي بيقول بدن ميليتريانك ود هايسا تونسيا ليبيا الجيريس بالغتورة جيب بيقول بدنا تنتي دبل بيدي أنتي كنا جنب لوجوس إما كوا دكان كرواتيا أما كروات كف عربي الأولى ما حدد كي أصليا ماشى مركو وركو أورنا وحدد كلاونه قارنا بلوروسيا كيمي قارنا ميرها كلا دمها قاسي كوسام اسمه يكويرها وكون أتشبيس كدمها باربر بلد ويشوغان يوروبودا ويدورسدا ساس كودم بيه واي وحنا قدرت فايلانا وفايلانكا إيو إن تكلا ديبو إلى دad kan Ilaahay ba karaamiyay dad kan aad dhibayso tastaamka dadka dhib oo dhibtana waliba ku faray adigu ba meel baabaaysa waraadiyad baan idin salaamaya guliyo gobanimo waxana run ama waligood ma daahiraya wallahi baanay daahiray isaaq aad arkaysan ummadii Soomaaliyeed wallahi iyaga ka darna horo iyaga oo ka darna maanta iyaga ka darna reeshaq saxaab gibigooda tanahooda ku mashquulsan aniga gaacad sanano qurun ba iyaga ba ka hadlay bal miyaad aragteen reeshaq saxaab iyaga ku mashquulsan waxba kuna naga badaaba Sooma wal dadkan markay waxan bay ogiin sabab waxan ba imanaya day bal waxaan isqabanay waxaan garaad u kordhayn waxaan xaasidnimo waxaan waxbana qabanay waxba qabsan maayeen bal imka ninkaasu deegaankiisa dad u fiirsatay wariya ونوجنا وحكيمي ماشي اللي هذا إيش جدو برا الشباب بها يسطا بر وهي بين خلينا يجبس كوس الدريا وقاعدين كي ماشي أو الدقنايا مو كود دريا بالكور وإنه الطب كوري سوى بجوبي أبوه كلا بيس كتاب ما كان ده بضنا عسى ما حروت السكرة ميا لا عدله الشين كريس وهالخنا لسه تاجم بيني وخرافات بين ميديا همصان بقول ورا ده أتمنى السلام قولي يجوبني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا عليها هاي كلمته وجوده ميسان كتيجي وحويا هالكا وحنا مرينا يا فرين مدحوينياشي هراء الشيخ شريف إيو حسن الشيخ محمود إيو أقل كسراء سنة هذا إيو دولة قبلات هذا دمانتود أنت مير كقبتها يعني يجد شيء بده وجود شرين هدو يهي سعيد عبد الله الدني هدو سمال عيد وكباب قارع هدو يهي نكال هدو أحمد محمد إسلام هدو يهي كان سجوا كونفور قلبت ومدة إسكا هيستان والله وحيران حتى وحو مشاعر وبحيولاي حتى تيجي ما يشوف فرد استبع أنت يوم ما دحضك على إيه قلبك يوم أنا ولي مدحوين ما يدورنا وحان هالك هايدين مرنين ودردارن كيبوي ورنما يهو نكاس كغطا نكاسو أرجوس إنه أمته سنعسيو إنه سيك لفوجيو
mooyaane wax ka soo naasacad ma jirto. arrinta uu ku dhaqmayana sanad iyo badh ka hor waa waxaan anigu ogaaday, aniga cabdisamaan bartaa ka hadlay oo ilaahay igu ogi, oo haddii golayaal xitaa la isla tegayo waan ku furayaa marag, waanan hayaa, mana tuurayo, waayo cod ahaan maan duubin anigu, codka dadka ma duubo, xaqiiqda fiican. waa kelmadda uu ka soo qaatay ninka la yidhaahdo Fahad Yaasiin ee meesha ku haya Cabdinuurka yar. waxayga sumad baan u yeeshay, waxay ahayd waqtigii Jawaari la ridayay ayaan wanaga habeenkii oo dhan soo jeednay oo aan wada hadlayn. dabeetana waa tii meesha guriga shacabka ama baarlamaanka waa tii qashqashaadu timi ee niman Mahad Salaad hadduu doono ha noqdo, Mahad Salaadna gaadhsiiye iyo kooxahaas oo dhan berigaa aanu kala aragtida duwaneyn, laakiin iminka aragtidu isu timi waqtigaas. dabeetana kelmad uun baan ilaahay geersiiyey. warna nimankii mucaaradkaas oo kuwan iyagu baarlamaankii iyo meeshiiba isu gudbay, inanka yare feerfeer ka yimiye beritana xabashiga noqonaya Cabdinuur, inkastoo de usoo dhiibay ninka lahada Fahad Yaasiin, soomaalina aanu dan wadin kelmadan ilaa imikada maskaxda ku programsanta. maanta nin mareexaana baa joogo cidna loo joojin maayo. dadna waxaan wallahi kaaso rag iyo rabbi toona inaan ogeyn ninkaa uu ku leeyana nin isaa qabaan kelmadda. maanta nin mareexaana baa joogo hawiyahan iyo dadkan iska qayqaylinaya iyo waxaan oo ay ka hadlayaan cidna loo joojin maayo. dabeetana halkaas hadalkayga suugaa dambeysay meel baa ku qortay, waxaan odhanay mareexaan balina ka yaree maalaacniga waa ka yare horbadodi idhaahda marba afayaan baan way wax noocaas waan de toos u garanayna. mareexaan miyaanu kii siyaad barre shalataanay ahayn, miyaanay kii iyagoo ilaa saylac ilaa qofka yare iska dhashay maalaacniga waa iska doqonay, miyaanay kuwii iyaga oo ciidamadii Soomaaliyeed oo dhan walaa Isaaqow, Hawiyow, Gabooyow, Daaroodow, Ciisow, Dirow, Raxan Weyney balaayo oo dhan iyadoo la socoto kii wadada la mariyay miyaanay mareexaan ku ahayn oo iyagu intay dalkaba qabsadeen aniga haw channelka iga sii dhig ka reer miyiga. dawooyinkana waxay ku fikirayaan ka reer miyiga ee reer miyi oorle sarkaal ka dhig, islaantan waxaad ka dhigtaa iyadana sarkaalad ciidanka. war miyaanay kuwii uun ahayn ma mar labaad la soo abuuray. qofku haddaan taariikhdan ahayn uu indhalaayay. soomaalida koonfurtuna had iyo jeer horta qaarna way iska beedhisayn, inta badan taariikhda way ka xanaaqaan, runtana way ka xanaaqaan, taariikhdana way diidaan. taariikhda haddaad diidaan hore waan idinku lahaa kitaabkana diida, kitaabkan qur-aanka ah diida oo waxtaan kitaabku ma jiro. waa kitaabkan qur-aanka oo idinka dhahaa qur-aan baan naqaanaa iyo diin baan naqaan. kitaabka qur-aanka gebigiisuba kala badhooba taariikhdu ka hadlayaaba iyo wixii dunidan ka dhacay, dadkii kibray iyo nimankii odhan ana rabbukum alaclaa, ninkii la odhan jiray ii sheega fircoon ee kibray ilaahay siduu u galay ninkii kibray ee anigu baa ilaah qura una. marka qoladiinan kule ay saacadu kaga fadhiistay mareexaan baa siyaad baraaha war waxna mu ahayne Soomaali baa intay wax u dhiibtay oo rag baa meesha markii hore la inqilaabay. hebel sheelow ka mid ahaa, ninkii uu dilay uu ka mid ahaa, isagana ay ku qaadeen kiis aan shaqo baan ugu lahaynoo la odhan jiray article 58 articlekaas 8 oo la eegtay iyo la macawaadada kuwaas u dabageliyay. markii dambana waa kii isaga oo aan waxban ahayn oo aan isagana ku dambeeyay dadkiisina kuwii la socdaan ku dambeeyeen baar calaaca. war aad baan idin salaamaya. wassalaamu calaykum maantana waa taariikh labaad. history repeats itself.